shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa maanta guddoonsiisay cusbitaalka guud ee magaalada Boorama mashiin dabdhaliya ah oo 30 kVA ah. wareejinta deeqdan ayaa waxa goobjoog ka ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal, madaxda caafimaadka ee gobolka Awdal, mas'uuliyiin iyo saraakiil ka socotay xafiiska shirkadda Telesom ee magaalooyinka Boorama iyo Hargeysa iyo marti sharaf kale oo fara badan. ugu horreyn waxa halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha shirkadda Telesom ee gobolada Awdal iyo Salal, Cabdulqaadir Aadan Nuur, iyo mas'uuliyiin ka socotay xafiiska guud ee shirkadda Telesom ay ku leedahay magaalada Hargeysa oo ay ka mid yihiin Cabdiwahaab Maxamuud iyo Cabdisalaan Nuur Ismaaciil. waxaana ka mid ah hadalada mas'uuliyiinta shirkadda Telesom. qalbigayga wax dareemay marka sideedaba waxaan fahansiinay shirkadda Telesom waa shirkad annagu waan leenahay. waxaan jecelahay inaad risaalada qaadin shirkadda waa shirkad aan leenahay. ganacsatada ayaa lacag ku leh share bay ku leedahay waa shirkadeedu marka faa'iidada ay dhasho marna inaga qaybinaga dib inoogu noqoto jeebkeena dib ugu noqoto oo caruurteena ku masruufna oo guryaha ku dhisana oo business kala ayaan ka abuurana marna dadkeena fuqarada shirkadda Telesom dariiqa weyn waxay ka ciyaartay doorkii ugu muhiimsan ee shaqo garayni oo garanaysa haday tahay dhiirigelin haday tahay maahanti ah runtii waxa weyn kiiloomitirkii ugu badnaa yada qaatay waxa kale runtii qaadatay bari ugu horeeyay la bilaabayna lacagtii ugu horeeyay la bixisay waxa kale oo kamid ah imka jaamacadda Amuud maalintii dhaweytay runtii ay daamirka raadinayeen lacagtii ugu badnaa shirkadda Telesom baa bixisay in cusbitaalka Boorame generator-ka aan u keenay waxay sababtiisu tahay dareenka ana cusbitaalka Boorame galaya walaalkay baa gala abtigay baa gala dareenkaas anu yahay ma aanu jabco waxaan qabanayo kaliya Telesom dareenkayda la qaybsanaysa waxay kala qayb tahay runtii inay idinku dhiirigeliso inay mujtamaca reer Boorame ka mid tahay. shirkaddu saad sheegteen de isbitaalka iyo jidadka iyo inta kuma koobnee sektor kasto sektorada bulshada ka mid ah iyo kuwa dawladda lafteeda kala gacan gacan qabana marka qaar cashuurtuna naga qaadaan marka qaarna wixii ay nooga baahdaan dawladdu ka gacan qabana marka waxa weeye inaan ku celino bulshada waxna laga soo garaan waxna ku celin bulshada waxaan ku leeyahay iyadana adeegayga si wanaagsan oo isticmaasho haddii adeegay isticmaalada lacagna si waayaan annagu lacag keenayno cidna wax ku soo celinay wixii waa wax isdhaafdhaafayo gacmaha isdhaafdhaafaya iyo galada ka dhalata. agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aaye oo ka hadlay deeqdan mashiinka ay shirkadda Telesom ugu deeqday cusbitaalka guud ee magaalada Boorama ayaa tilmaamay in shirkadda Telesom hore ugu gudbiyeen codsi ay kaga dalbanayeen deeqdan waxay tahay buu yiri jawaabtii nooga soo noqotay waa sida hadalka u dhigay agaasimaha guud ee cusbitaalka Boorama waxaana hadaladiisii kamid ahaa jeerbaan yar codsi kaga gudbistay Telesom laba joor mid kuma qan mar waa maanta marna waa maalin wax yar fuudan Cabdulqaadir uu gudbiyo loo kalo iyadana wadarkii doontaane isbitaalka waxa ku yaala kuraasta lagu fariistay shubkeed geedaha hoostooda lagu sameeyay calaamada Telesom baa ku buusan wada marna labadii marba si degdeg ah ayaa ku tijaabay hadal waxaan ka codsaynaa shirkadaha kale ee loo taqaanaa wadanka joogana inay ku daydaan malaha 2 sano ka hor muddo 2 sano ku soo daabshiil gudbistay codsi ilaa imika warka ma hayo isagoo waliba waxaan ku qoray anaan ogahay isbitaalada Soomaaliya isbitaal aan daabshiil wax ka qabanay ma jiro markii laga tago ka Boorama warqadda codsiga asaas ku qoray anigu idinku mahadnaqay waxa dalka ka qabateen oo meeshaad ka qabataan dalkii Soomaaliya iyo community aad u qabateen isbitaalka Boorama wuxuu ka codsanayay maanta inaad gacantiisa inaad soo eegtaan. sidoo kale isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi iyo xubno kale oo bulshada ka tirsan ayaa iyaguna halkaasi mahadcelin ka jeediyay waxaana ka mid ah hadaladoodii. waxaan ku aragnay ma jirto kala magacaabi maayo dee waa kuwa dadweynaha ka ganacsanaya ee magaalada Boorama degan waxa inta ay sii dheer inta ganacsatada joogtay talaabadoodu aad u gaaban tahay oo yamxeerada mana ku yar farabadan ma wixii qof u geysatay waa khayraad ku yeelan marka guud ahaanba inta Boorama degan iyo inta banaanka deganba waxaan aad uga codsan lahaa baahiyahaasi jira sidii waxay uga qaban lahaayeen dibadaha iyo gudahaba cusbitaalka in aad iyo aad loo soo dhiso waliba aadna loo qalameeyo waliba dawooyinka casriga ah iyo ugu wanaagsan adduunyada dadka lagu daweeyo in loo keeno ma aha yaana maartay dhismo kaliya waxba tari maaye
dadka in la soo xiray hooda waxay sheegtay reer la siinaa qalada qaar badan ugu tageen laakiin kuwa suuqa naanaabayana waa iyaguna waa way wareegaan intee way meeraysanayaan ciddaasoo dhan yaa ka mas-uula ma warbaado haysaan waxaa ka mas-uula qabla kulli shay dawladda مو بعد بس اليوم لا ودك يوم اسقط صباح دولته قف كاستو او ku gaajooda Soomaaliland gudaheeda inta rabo musmar cunayna majlisyada xisbiyada iyo rag cirada leh waaweyn waxaan raada guulwadayaashii Maxamed Siyaad Barre xiriireen baa tihiin waxba odaga haayna dawlad xoog loo dhisay isagu wadaad u bundhacbaa una xiri jiray laakiin dawlad xoog loo dhisay oo Afrika ugu xoog weyn aad shirkadan Telesom ee soo siisay cusbitaalka aad barku mahadnaqaya kelmadii aan boobay ee maayaxu kala galaa dufrad aan eri Telesom socotay waxa weeyay wada garanaysid shirkada Telesom waa cidida toos oo aqaalaysa meesha waa kun kama ay shaqaystaan bulshada ugu shaqeeya taa waa lagu marag furaya ma dhiban dadka haday live kuleeyihiin telefoonka lacag haday waxa way ka sugaan qofku malaha uu waayay yiraahdeen aqalka marnaba kuma garaacaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal ahna kusimaha barasaabka gobolka Awdal ayaa isaguna halkaasi mahadcelin uga jeediyay shirkadda Telesom ee ku deeqday mashiinka dabdhaliyaha ee ugu deeqday cusbitaalka guud ee magaalada Boorama sidoo kalena wuxuu ka dalbaday shirkadaha kale ee la midka ah shirkaddan Telesom inay iyaguna ka qayb qaataan waxqabadka danta guud isagoo arrimahaas ka hadlayana wuxuu yiri kusimaha barasaabka gobolka Awdal waxaan oran karaa markay shaqadeedii qabatay ay dhamaysay shaqadeedii oo warskaasiinta saadka iyo maartay laylka waxa u gudubtay horumarkii oo ah inay dadka wax ku celiso wax badan bay qabatay ma deeqdii ugu horeysay shirkadda Telesom ugu deeqday cusbitaalka guud ee magaalada Boorama balse waxay hore u siisay deeq fara badan shirkadda Telesom cusbitaalka guud ee magaalada Boorama Hashim Sheekh Umar Good Somali Sat TV Boorama